ahayd xaflad aad u ballaaran waxaa ka mid ah khudbado waxaa ka mid noqon doona fanka noocyadiisa kala duwan hadday ahaan lahayd heeso hadday ahaan lahayd dhaantooyinkii hadday ahaan lahayd buraamurka gabayada guud ahaanba fanka lama soo koobi karo qaybihiisa kala duwan oo dhan way ku jiri doonaan waxaa kale oo aanu mar labaad iyo mar saddexaadba ugu hambalyeynanaa warbaahinta caalamiga ah ee Ogaadeen 24 oo sanad guuradeedii labaad oo ku soo beegantay maalin guud ahaanba ku weyn saxaafadda caalamka isla markaana ah 3 bisha May oo ku beegan maalinta saxaafadda adduunka waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba iminkana waxaan jeclahay inaan kusoo dhaweeyo agaasimaha guud ee warbaahinta Ogaadeen 24 oo halkan inooga jeedi doona khudbadiisii sanadka iyo sidoo kale marxaladii kala duwanaa ee ay soo martay warbaahinta caalamiga ah ee Ogaadeen 24 waa Axmed Cabdilaahi soo dhawow agaasime Ogaadeen هاي سراعه تبدل في كل حرب بسم الله الرحمن الرحيم مركور وحنو مهدلينا إلهي ماشي مسؤول كان أيام حدث كان مركل بعد وحنو مهدلينا بالكيلها والباهين توجدين 24 مدن عبد الحكيم مرسل وفرد المان تيات وقرب بدن كما قابل يساعد كاره كما قابل يسرها وحكروا مهدلينا قيبها كلا دوان صحافته سيدا صحافة الصوماليين ومان كامرتي نوو أهون كان صحافتنا لسوقو بكرين هذه نقطة قبلنا سوري السنة كونفورتا يوليبا قبلنا وقوي إلو يقانو سوماليلا وحاجر وربعين هذا فربضنا وكسر كشيء وحاكروا أيضا نجروا نسود ويننا ومهد إلينا وربعين توغادية وأي كمي تهاي Ogaadeen net Ogaadeen TV iyo wariyaasha Ogaadeen 24 ayagana meeshan xaadir ku ah waxa kaloo ayagana meeshan xaadir ku ah warbaahinta Ogaadeen sida LS TV iyo waliba raadiyo xorriyo inta kadib sida aad la socotaan warbaahinta Ogaadeen 24 oo aad wada garanaysaan oo laba jibsatay waxa ay gaadhay guulo ballaaran oo gudi iyo dibadba warbaahinta Ogaadeen 24 muddadii ay jirtay iyadoo ka hawlgalaysa xogta dhabta ah ee ka jirta waddanka Ogaadeen ee gumaysigu ka jirto waxa ay noqotay mid ay shacabka Soomaalida Ogaadeen dibad iyo gudaba ay ku taxan yihiin hadaba inaga oo ka ambaqaadi doona war-saxaafadeed aan soo saaray iyo waliba waxqabadkii oo kooban ayaan halkan ka aqrin doonaa hadduu Rabbi idmo warbaahinta Ogaadeen 24 sanad guuradeedii labaad sanad guuradii labaad ee warbaahinta Ogaadeen 24.com oo ku beegan maanta waa ay taariikhdu tahay 3 bisha shanaad 2014 waxaa ka soo wareegatay muddo 2 sano iyadoo dhidibada loo taagay sanadkii 2012 warbaahinta Ogaadeen 24.com waxa ay ka mid noqotay muddadii yareyd ee 2 sano ee la soo dhaafay warbaahinta ugu firfircoon taasoo ka soo waranta waddanka ay dagaaladu sida tooska uga socdaan ee Ogaadeen warbaahinta Ogaadeen 24 waxa ay leedahay wariyaal kala jooga daafaha adduunka oo soo tabiya wararka iyo warbixinada ku saabsan xaaladda Ogaadeen iyo waliba midda Geeska Afrika waxa xusid mudan in warbaahinta Ogaadeen ay wariyaal ku leedahay waddanka Ogaadeen gaar ahaan xarunta maamulka Dabaqoodhiga ee magaalada Jigjiga warbaahinta Ogaadeen 24 guulaha ay ku tallaabsatay waxaa ka mid ah in muddadii warbaahinta Ogaadeen 24.com guulaha ay ku tallaabsatay waxaa ka mid ah in awood loo siiyay inay xiriir la samayso qaybaha kala duwan iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeen ee ka howlgala waddanka Ogaadeen waxayna saa uga mid noqotay kuwa loogu aqoonsi badan yahay ee ay ku taxan yihiin bulshada Soomaaliyeed iyo Soomaalida Ogaadeen meel walba ay joogaan warbaahinta Ogaadeen 24.com waxa ay samaysay laba bog oo Facebook ah oo dadka loogu gudbiyo wararka iyo warbixinada Ogaadeen gaar ahaan waxay arintani si weyn u saameysay dadka jooga waddanka Ogaadeen iyo ciidanka xoreynta Ogaadeen waxa mahad gaar iska leh waxaa kaloo u mahadcelinaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed iyo Soomaalida Ogaadeen waxaa kaloo u mahadcelinaynaa warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hadda ka soo qayb galay xuska sanad guurada labaad ee Ogaadeen 24.com waxaa kaloo u mahadcelinaynaa dad aad u badan oo kala jooga
Ogaadenya iyo dibadiisa oo nala wadaaga in badan waxyaabaha ka dhacay Ogaadenya oo ay goobjoog u ahaayeen iyo qaar kale oo loo soo sheegay ama ehelkooda gudaha Ogaadenya ku sugan ay u soo sheegeen ogaadin warbaahinta Ogaadin24.com waxay ogaadinaysaa iyo waliba hambalyo u diraysaa dhammaan wariyaasha ka soo warrama daafaha adduunka gaar ahaan kuwa jooga Ogaadenya oo xaalad aad u qalafsan ku soo tabiya wararka waxaa kaloo ogaadinaynaa warbaahinta Ogaadenya sida warsidayaasha idaacadaha kala duwan ee taageera qadiyadda Ogaadenya waxaa kaloo ogaadinaynaa shacabka geesiga ee Soomaalida Ogaadenya oo u adkaystay xasuuqa iyo dambiyada bini'aadanimada ka baxsan kuna minkaday qadiyadooda xaqa ee xoreynta Ogaadenya waxaan ogaadin iyo amaan u soo jeedinaynaa jaaliyadaha Soomaalida Ogaadenya ee kaalinta libaaxa laga qaadanaya halganka ciidda barakaysan Ogaadenya lagu xoreynayo una dhabradeegay agardaamooyinka gumaysiga Itoobiya warbaahinta Ogaadin24.com waxay sidoo kale ogaadin u soo jeedinaysaa ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadenya ee loo soo qaadiyo OYSU waxay warbaahintu cambaaraynaysaa xasuuqa cadaadiska dulmiga iyo midabta koorka uu gumaysiga Itoobiya ku hayo shacabka galmudugida ee Soomaalida Ogaadenya waxaa kaloo cambaaraynaynaa saxaafadda afka Soomaaliga ku hadasha iyo midda aan ku hadlin ee taageerta gumaysiga amaba u xadlisa ee ku hadasha afka Soomaaliga warbaahinta Ogaadin24.com waxay ugu baaqaysaa dhammaan xubnaha jabada wadaniga xoreynta Ogaadenya iyo haweenada jabada wadaniga xoreynta Ogaadenya inay markasta u taagnaadaan fashilinta shaqooyinka cadawga ee wajiyada badan leh iyo la dagaalanka wax kasta oo halganka wuxuu dhimi kara iyo inay si laba jibaaraan hawlaha ay halganka u hayaan waxaa kaloo ogaadinaynaa ururka midowga dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ogaadenya waxaa kaloo ogaadinaynaa jaaliyadda Soomaalida Ogaadenya ee bariga Afrika waxaana leenahay guul iyo gobonimo waxaan insha Allah inoo ballana sanadkiisa kale insha Allah warbaahinta Ogaadin24 inay noqoto warbaahin lagu soo biiriyo TV iyo waxyaabo fara badan oo aalada internetka loo isticmaalo waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala